السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وان إدin salaamay salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan doonayaa inaan ka hadalno arrin aad iyo aad u muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka jirka qaybihiisa kala duwan. maanta waxaan ka hadlaynaa qayb ku saabsan jirka oo ka ah ra'iisi ah ama wax weyn ka qaadata, waana caloosha. cudurka caloosha ku dhaca cudurro ka mid ah ayaan doonaynaa maanta inaanu ka hadalno insha Allah. waana cudur waxyaabo badan saameeya. marka intaynaan cudurka ka hadlin waxaan ka hadlaynaa waxyaabo badan oo dadka uu ka daawoodo ama dhiba ama xanuuno ku dhaca oo la dirsa, sida waxa loo yaqaano qolonka, waxa loo yaqaano qaazaadka, waxa loo yaqaano calool adayga, waxa loo yaqaano gastriga, waxa loo yaqaano qabsinka, waxa loo yaqaano laab dilaaca, waxa loo yaqaano appetite-ka xun, appetite-ka inuu ka xirmo appetite-ku, haraadka, kuleelka jirka. waxa ka dhasha cudurka aan ka hadli doono waxaa ka mid ah lafa xanuunka, xubno xanuunka, waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano anemiyada ama faqri damka, qofka inay dhiiggiisu ka dhamaado cunsurka loo yaqaano xadiidka ironka, kaasoo saameeya indhaha, inuu qofka aragtidiisu ay yaraato, xubnaha oo sanqara, daalka badan, jirka oo had iyo jeer hale kulul oo diiran aad moodo qofkuna xanuunsanayo. waxaa kale oo ka dhasha cudurro saameeya caloosha oo hadhowtu isu bedela cancers ama cudurka kansarka loo yaqaano. waxaanu ka hadlaynaa cudur caalamka oo dhan ka jira, loona yaqaano waxaa ku dhacaa boqolkiiba 50 ummadda ilaahay caalamka ku nool, adduunka ku nool, boqolkiiba 50 ilaa 70 cudurkaas uu ku dhacaa. waana cudur jira laakiin inagu ma naqaano. markaynu Soomaali ahaan aynu akhrino waxaanu naqaanaa gastriga, waxaanu naqaanaa laab dilaaca, waxaanu naqaanaa calool adayga, waxaanu naqaanaa lafa xanuunka, waxaanu naqaanaa aragtidoo yaraata, waxaanu naqaanaa waxaas oo dhan. marka laysu soo duubo cudurka keliya ee koos gareeya ayaan doonaynaa inaan ka hadlo. maxaa keenay waxani waa natiijo ka timi cudur caloosha ku dhaca. waxaanu ka hadlaynaa waa wax loo yaqaano germs ama loo yaqaano germska caloosha loo yaqaano. af carabigana waxaa loo yaqaanaa waxa la yidhaahdaa jarthumat almacda, af ingiriiskana H pylori baa la yidhaahdaa, dadka af ingiriiska ku hadla H pylori. waxaasoo dhan bay ay samaysaa ayna ay sababtaa. marka waxaanu ka hadlaynaa cilaajkeeda iyo waxay ku timaado. intaan cilaajkeeda gelin waxay ku timaadaa horta baashan aan ka hadlaynaa waxyaabaha dawooyinka laab dilaaca jabiya ama dhanaanka caloosha yareeya ayaa sababa oo ay ku kobocdaa oo sababta. cuntooyinka daaweeya cudurkaana xalqada dambe ayaan insha Allah idin sheegaynaa insha Allah taala. ilaahay na caafiyo dhammaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.